السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا قيمها له ملك استواد جوكتان وارد السلام أيام أصحابتا كحرا جنال كينا قصوين كان دارا لبا وأنو هل كان قصوين كعجيب كانوا ديكو قصو قد بنو ديكونا فكر كينا إيا أركتدينا أدنوصو قرطان haddaba toddobaadkan asxaabay waxaan idiin hayaa qiso dhaaftay oo aada cajiib u ah. qisadan hal cillad ayay leedahay. cilladda ay leedahay waa cillad dadka qisooyinka cabsida aan jeclayn inaysan daawan, laakiin waa qiso caadi ah oo mar walba dhacda qofka wax badan uu ka baran karo. qisada magaceeda sida halkan ku qoran waxaa la yidhaahdaa qisadii maskii geelii jinka la yidhahdaa. qisatu thucbaan jamalu jina la yidhahdaa. bacleed maxay tahay? qisadii maskii geela jinka ahaa waaye. marka qisadan waxay ka dhacday sida qoraaga uu leeyahay boqortooyada Sacuudi Arabiya sanadkii 2001 markay ahayd. qisada marka waxaa ka sheekaynaya wiil xilligaa dhalinyaro ahaa oo 19 jir ahaa. حسام محمد القيسي ayaa la yiraahdaa. waa wiil yar oo Sacuudi ah 19 jir oo dhalinyaro ah. wixii ku dhacay ayuu uga waramay say u dhaceen jirad xilliga ka soo baxaysay Sacuudi Arabiya oo la yiraahdo Ukaad. marka qoraaga wuxuu ka soo qaadanayaa qisada jariiradaas oo qortay wixii ka dhacay meeshaas. waaye haddaba qisadu wiilkan iyo saaxiibadiisa oo 4 ah ayaa waxay soo qaateen gaari Land Cruiser ah. waxay u soo baxeen magaalada banaankeed. waxay deganaayeen meel yidhaha Abha, marka meel 55 kilomitir u jirta magaalada oo meel iska cidlaa oo bannaan ayaa habeenkii la soo aaday. saacaddu waxay ahayd 9 fiidnimo ama 3 saac habeennimo, qofba siduu u yaqaano. waxay u soo baxeen marka inay hawo iska soo qaataan meesha barxadda ah oo bannaan oo buuraha ah. meel barxadoo bannaanay leedahay oo bacaada. dirinay wataan marka dirintii meesha dhigteen, shaahay soo qaateen. bilna way jirtaa, dayaxaa jira, iftiin fiicanaa jira. gaarigooday meesha dhigteen. meesha marka ay isaga baashaalayeen. waa iska dhalinyaro, inkastoo warbixinta la leeyahay laga yaabay inay meesha magaalada ay uga baxeen Sacuudiyaanka inay waxyaabo isticmaalayeen, droogo iyo waxaas iyo waxaasaabuu iska jira, laakiin wax xaqiiq ah looma hayo. laakiin meesha wixii ka dhacay ayaa muhiim ah. wiilashii 4 ahaa halkaasay habeenkii ku sheekaysanayeen. saacaddu markii ay gaartay 1 habeennimo, waa saq dhexe, ayaa wiilkan qisada ay ku socoto oo la yiraahdo Xusaam Maxamed Alqaysi ayaa wuxuu meel agtooda ah ka arkay mas weyn oo dhirir badan oo saas u soo fiirinaya. dayaxina wuu jiraa, ogow bishiyaa jirta. marka meel iyaga ku aadan isaga marka indhihiisa wiilkan sheekada ku socoto iyo maska ayaa is arkay, way isku beegmeen. markaasuu hadalkii ku dhagay, wuu baqay. saaxiibadiisu wuxuu ku yiri dhageysta,
dhabar saddexdoodu marka way kusoo jeedaan dhabarkoodu ka arkayaa marka maska wuxuu yidhi marka maska madaxiisa inta hore way madowdahay inta dambana allawnu alasfar alayidhi waa jaalle waaye oo midabo kale ku dadarsan yihiin mas uu weligiisa xataa buug iyo meel ka arkay maaha oo xataa sawirkiisa uu arkay magaalada marka ay ka yimaadeen abha la yidhaahdaa waxay leedahay meel oo xayawaanaadka masaska waxa kan ay joogaan ninkan marka meeshaasuu tegi jiray mas noocaana weligiis ma arkin weyninka maska iyo maskan labada kalar kala leh jaallaha iyo madowga ninkan wuxuu yidhi dhegaysta dhabarkiina waxaa ku aadan mas saasay u wada fiiriyeen markaasaa nin kastaa waa cararay xaggee lagu cararayaa gaarigii land cruiserka ahaa oo meesha u yaalay ayaa lagu cararayaa wuxuu yidhi tarmuuskii koobabkii dirintii kabaheennii xataa qaar wixii oo dhan waa ka soo cararnay haye gaarigiyaa la isku soo wada guray haye hala kaxeeyaa la yidhi gaariga naga wada meesha hor meeshaan nimid maxay waaba iman jirna meeshaane maxay tahay maskan noocaan ah ayaga dhan waa shoogsan yihiin aniga iyo mid kale gadaal ayaan fadhinaa uu yidhi yarka wadayay iyo mid kalena horay fadhiyaan afartoodaas waay asagu marka yarka sheekada ka sheekaynaya gadaal fadhiyaa xusaam maxamed alqaysi la yidhahdaa annagoo argagaxsan ayaa gaarigii soo kaxaynay gaarigii markuu xoogaa socday ayaan waxaan maqlay uu dhahay nimankan waa yaaban yihiin nin walba waa la argagaxsan yahay gaariga hoostiisa hoosteeni shanqaraa ka maqlaynaayo macnaha kuraasta hoostooda aan joogno ayaa shanqaru ka socotaa aniga marka wuxuu yidhi waa baqay waan soo booday labadayda lugood waxaan soo saartay kursigii yarkii kale isaguna waa soo booday kursiguu saartay kii hore fadhiyay isaguna markuu annagana arkay isaguna waa booday kursigii labada lugood saartay macallinkii gaariga wadaayay markaa isaga labada lugood hadduu kursiga saartay maxaa haray gaariga yaa waday marka kii wuxuu yidhi marna luguu saaraa mar lugta kaluu saaraa mar luguu saaraa marka annagoo wareersan oo wax shanqar keliya maqlayna oo leh warniyahow maskii mid kaloo camal ah ayaa gaariga noo saaran ayaa waxaan ku nimid meel petrol station ah oo shidaalka iyo baabuurta looga shubto hal maraa ka degan oo dhaa meeshaa dhignay banaankaa u soo baxan waxaan samaynaa aniga marka waxaan ku taliyu yidhi niman yahow dhagaysta gaariga horta waxbaa ku jiro yidhi masaa ku jira haddana ma furfuri karno hadda aan baxno taxi dalbanno magaalada ku laabanno berita duhurka cad maalin caddeey aan imaanaynaa baabuurka saan u baarno laakiin hadda qaabaa u baarno ma naqaano sheekada waa naga wareeraysaa masaska hadday badan yihiin hadday laba yihiin hadday saddex yihiin ma garan karno marka waa inaan magaaladii u laabanaa taxi ay wacdeen taxi ay qaateen waa la cararay baabuurkii meesha petrol stationka lagu baarkimay waa la iska tegay duhurkii ayaa la soo laabtay gaarigiiyaa loo imaaday soo maaha gaarigii markaa la baaraa layidhi afartooda waa bes meesha marka waa meel iska cidlaa waa iska gobol maraa baabuur imaanayaa batrool ka qaadanayaa ma inta kale waa iska bannaan tahay ninka batroolka iibinayana meel halkaas camal uu ku jiraa nimankii marka waa imaadeen taxi ay ku yimaadeen taxigii wuu tegay nimankii marka way soo baxeen hore marka waxay u soo qaateen ninkan sheekada ku socoto baangadu soo qaatay baangad
kuwa kale ulo iyo waxaasay wataan macnaha iyaga waxay rumaysan yihiin gaariga in lagu jiro aaminsan yihiin gaarigii albaabadiyaa la ballaqay waa la furay in la baaraa la isku dayay waa la juqjuqaynayaa kuraasta hoostooda ula dhaadheer ee wataan jaq sida loo siinayay baa maskii ay ku soo arkeen meesha mid la mid ah ayaa madaxa soo taagay madaxa marka waa madow yahay inta dambana sida geel oo kale midabkiisuu leeyahay waa qisada waxaa la yidhaahdo qisadii maskii geela jinka la yidhahdaa masay weligood arkeen maa madaxiisa halkaasuu leeyahay dhirirkiisa waa 2 mitir maska way juqjuqeeyeen maskii banaanka kusoo dhacay wuu soo baxay wuxuu damcay inuu cararo xusaam baangadu wataa isaga kuwaan ulay wataan baangadii ugu horeysay markuu tuuray ayuu madaxa kaga dhuftay maska mar kale ma nuuxsan maska ogow wuu u celiyey ilaa maski ka kala go'ay madaxii iyo intii kale waa kala go'een kuwii kalena nagtay ku hayaan iyagana ulay wataan bab maski marka waa la dilay moogtay okay midaa marka wuxuu yidhi ma keligiisaa ku jiray mise kuwa kalaa ku jira gaariga aan fiirino halkan ka baar halkan ka fiiri kuraasta hoostood gargaraaca meel kasta gala meesha matoorka fura halkan fiiriya lugaha hoostooda ha la fiiriyo waa la waayey wax kaloo masa oo gaariga saaran ma jiro hadda marka waxaa la gaariga inaan ka haysano marka maskii waa dilnay waa la soo baxay war masku muxuu ahaa waa la qosqoslayaa war weligay ma arkin war masku muxuu ahaa marka magaaladooda iyo beesha waa idiin sheegay 50 iyo dhowr kilomitir waaye marka meel makhaayadoo u dhaxaysa ayay yimaadeen gaarigii meesha dhigteen makhaayadii soo galeen iska sheekaysteen xasaamkii ayaa wuxuu yidhi niyow sheekadiina iska wata aniga madaxa aad ii xanuunaya waa la galay odagii fiirsada waa kii baangada watay waa nagta ka saaray baska wuxuu yidhi mayo aniga madaxa aad ii xanuunaya sheekadiina iyo buuqiina ay dhibaya ma baxnaa may waxay dhahdeen xoogaa iska sheekaysanaynaa okay marka gaarigan galayaa u yidhahn xoogaa yaraa seexanaya haye ahlan wasahlan gaarigiisuu aaday gaarigii kursigii horaan fadhiisto asaga marka hore gadaaloo iska fadhiistaa kursigii horaan fadhiisto yidhi saasaan isku tiiriya xoogaa madaxa laga hayay inaan hurdaan damcay nimankii marka maxay ku jiraan makhaayadda meeshu marka waa meel dariiq magaalo u dhaxeeyo iska cidlaa waaye maqaayadda isaga sheekaysanayaan dad kalea u yimid meesha isaga sheekaysanayaan ninka marka sheekada ku socota xasaam wuxuu yidhi dariishadaa la iisoo garaacay jag qamiisaan watuu dhahay waa khamiiskay qaataan iyo cimaamad gaduudan cimaamaddii wejiga ii saarneed saan u jiifto cimaamaddii iska qaado yidhi waxaan moodaa uu yidhi kuwii oo yimaadeen markaasuu yidhi war haddaa seexanay maxaa saan markaan u fiiriyey wuxuu yidhi naag fool xumo badan oo aadan fiirin karin oo haddana caariya waxaa leedaha dhar dhan ma wadato waa qaawan tahay waana naag fool xumo hadday jirto ay isugu tagtay kulaha saanaa u fiiriyey dariishadee soo gargaraacday waayaabuu dhahay waa dhegaystu dhahay marka maxay tahay waxaan maxay yihiin naag waalan oo meelaha ka soo baxday oo miskiinta wareersaan moodaawi markaasaan dariishadii aan dhigu yidhi markaan dariishada dhigu yidhi gacmaheeda gacmo bini aadanba uma ekee bini aadamku 5 farood ay leeyihiin iyadoo 3 faro camal waxay leedahay iyo cidiyo dhaadheer ee ceejinab siisu
فرق إلى أن كادي السيداي ويسيداي سوير ما إلى حد ليسو يري بوقتي مركاسي وحي تروير لغيس جيليغا سؤالي مدلين وروحهم ورجيلة جيل كاك هلا سبعوياي جمالي هاي سؤالي مدلين محوها جملك ورا ماشا بترول ستيشن كسوكو ما سودلين ها نفتان كاقاضيا وقيلنا انت اريوري وريغا سوغاراي ويليشي دي درينا كجري موقتا غاريغا iyo waxaan iyo masiyo ninkii waxay shiraadeen mas kale ay tuu soo baciyo nagta ka saaray way soo kala carareen iyadu marka way sii socotaa moogtay iyagu marka ayada ma arkayaan asaga kaliya arkay markay u yimaadeen waxay yiraahdeen Hassan maxaasabad maxaa kugu dhacay soo deg horta ma masaa ku qaniinay aniga dhan waa shoogsanoy ma u jeedeen ariyo naagta qaawan oo marka soo socoteen dhinaciina maraysa ordays bakaashay waxay yiraahdeen war naagta sheegaysi maxay tahay war naaga ay ceejisaysan fiiriya markii saas loo fiiriyay dhuntiis waxa cidi ku yaala waa la yaabay war naaga ay ceejisay qaawan oo fool xumo badan geelayga iga dishoyr wiilkii asaga dhan waa argagax dadkii meesha joogay way soo yimaadeen masaajid meesha ku yaalay niman ku tukanayay waa soo baxeen ninkii waa la kaxay masaajidka la geeyo quraan lagu bilaabay quraan lagu akhriyo marka ay magaalada geeya ninkii asaga dhan qandha meelay jirto aan la garanayn inta ku soo degatay kulaylka jirkiisa ka baxay waana qorax kulayl sacuudiga kulayl waaye asaguna waa karkaraya لا حول ولا قوة إلا بالله إليه كوي كلام عبصدي وين نحن بحيث جيل كأدي شيء ليه نكا أفكي سوحا كسهري جيلي محاود شيء تري جيلي محاود هو جيل كأدي شيء محوياي وهي بيه الموتاي وحكلا مكو هلا يعني كان ولا سوق حي gaarigii ayagoo cabsi oo nin walba oo shanqar yar markay gaariga ka yeertaba baqaya ayaa magaaladii la keenay magaalada marka waxa jooga niman culimo oo dadka quraan saaro oo sacuudiga aad looga yaqaan arimaas marka nin sheekha gurigiisa ku leexiyeen sheekhu wuxuu yiraahday ninkan problemkaas ku dhacay waa kaas ninkan marka ma hadlayaba waa jaraynaya asaga dhan wuxuu yiri maxaa kugu dhacay wiilkaygiyo waxay ugu tiri geelaygi maxaa iiga dishay geela muxuu ahaa geelaygi ninkii markuu inuu khalkhalsan yahay markuu arkay wuxuu yiri ninkan waa wareersan yahay u kaadiye adika iyo warama maxaa ku dhacay ninkan qisadii uu sheegay meeshii marka hore ka bilaabatay ilaa markii dambe maski uu ninkan qoorta ka jaray uu dilay wixii oo dhan maska suu u yaalay وحر لا حول ولا قوة مدح كمدو انت كلا جالة ميا ها وحال هذا يري جمل الجن وعشان كذا مقعد وقو نكا مركبو كرتي نكا دادكو قرآن سارا جمل الجن اللي راوي مصنوع عاصة حدا أركتو حيري كالليح حتابانين ومس جني جنكا عافولو ميا معناها جيلو دي واي جيلا ساو استعمالو بني آدم كأيونا قاب كله استعمالا وحاجة مقعيسة جمل الجنة لذا ويلكي قرآن على ساري حواو صوفي عناضي وحا انفكشن قاضي ماشي اديها وقبتي ناكتي جنكاي يب أداي ويلكي قرانك ممكن صار بس أنا وصل بري وجهي أنا بري والله سوق هذه اسبيتال لقي رياض عاصمة ده لقي اسبيتال وينه ماشي كويا لقي لخاطيرتي ويفيريان حنا محاكو قول عادي كاشي وحنا هذا اللي كانوا حولي سووا بابا الله يوليوها بس كو بوقسين
وحليني هو حشا كل عي إربضا على الدري فليبوين على الدري داوين انفكشن كعلى الدري انفكشن أولينا أرجني معهنا ليري وحنكن محا كل عي ورنكن تي وحشو شغالي يجي عبصدي ولا خاطيرتي اختار جرم الله ولا خاطيرتي كم إذا أمرك وحويري لجست لكن قرآن كيسه لغو ودوي أنك خاطيرتا wax kasta waa fiirinay waxa kan ninkan ay ma fahmeyno dhaanaka wax naga weynahayo yirikaan quraankiisi wixiisa saarta asagu de waa gaalo meesha iska jooga bogta laakiin uu aaminsan yahay dadkan inay dad muslimiin yihiin jinkan iyo waxa kan iyo gaaladana way yaqaanaan marka wuxuu ninkan waxa adiga ku daaweysatiin jinka ku daawey quraana ku daawey quraankiina saartu waa dhakhtarkii weynaa isbitaalka joog ninkii waa soo qaaday magaaladiisa la geeyay quraana sida loo saaray 3 bilood ninkii markuu xanuunsanaa oo markii dambe xogaa soo fiicnaaday taaliishii ku qubaystaa quraanka wuu cabaa quraankii lagu wadaa 3 bilood markii la quraan saaray uu fiicnaaday markii uu roonaaday laakiin ninkii maxaa ku dhacay qoortiisu saas waayo ma toosis laakiin sidiisa kale uu iska fiicnaaday dadka qoortooda saantaa ma dhakhtar kasta hadii la geeyo waxaa laga qaban waayo ninkii marka hadda wuxuu ku nool yahay abhaa meesha la yiraahdo oo Sacuudiga uu dhahay waxaa marka wareysatay jariirad weyn oo Sacuudiga ka soo baxay yiraahdo Ukaad warbixinta marka halkaas lagu qoray sanadkii 2001 waayo marka ninkii marka ilaa maantadan dhibaatadii maalinka soo gaartay ilaa maanta ninka waa haysataa wiilashii kale iyagu wax saas oo dhibaato oo soo gaaray inay khalkhalaan oo baqaan oo arikan uga baqaan marka qisadu marka waxa la yiri ninkii markii dambe iska caafimaaday laakiin damage-kii ama dhibaatadii ceejidii ayaa wali saameyn kule marka qisadu marka halkaas ay noogu dhamaatay marka waa qiso runtii cajiib ah wax badan ka baranayna marka ninkii sheekha ahaa markii loo geeyay waxaan idinka iloobay wuxuu yiri jinku wuxuu iska dhigaa waxyaabo badan masaso iska dhigaa mukulaalo iska dhigaa macnaha yaanyo madow iyo eey madow iyo hadaa aragto habeenkii dhagax inta qabata ku dhufanin maartay jinka iska dhiga maartay masaska noocyadaas oo kale iska ilaaliya kalara maskalar kala duwan leh waa midka ugu halista badan ayagaana isticmaala waaba caan dadka oo jinka iyo daaweeyo waxay yiraahdaan thu'baan jamalu jinna lirada arabtu waa laga yaqaanaa dadka waxa maartay dabiiba oo quraanka dadka saara waan ku way yaqaanaan marka arikaasa marka dhacay qisadu marka qisadaas ay ahayd runtii waxay ahayd qiso cajiib ah marka dardaaranka marka ninka sheekha uu leeyahay xayawaanaadka dilkooda ka feejignaada wax walbo iska dhigaa marka hadaa dhibaato u geysataan waa la idinku soo daaya midda kalena inta badan iyagu waxay saameeyaan uu yiri dadka aan salaada iyo soonka iyo cibaadadooda wanaagsaneyn ayay soo hujuumaan marka dadkan dad iska dhalinyaro ahaayeen meeshaas wax sababtay u tageen iyo laga yaabay inay wax iska statikeenayeen laga yaabaa marka sheekooyinkaas oo kale marka waa aad halis u yihiin marka anaguna waa inaan ka feejignaanaa wax badan ka baranaa marka aad u mahadsantiin dad badan fariimo badan ii soo qori jiray oo arki jiray oo dhahi jiray sheekooyinka jinka iyo waxa kan iyo noo soo badi marka de wixii macquul ah oo aan isleenahay dadku waxbay ka baran karaan ayaan idin soo gudbinaynaa marka qisadeena toddobaadkan asxaabay oo cajiib ka ahayd inta ayaynu ku soo gabagabaynaynaa sida caadada noo ahayd fakarkiina iyo aragtidiina iyo soo qora aaday muhiim u tahay qof walba wixii uu arkay hadda ka hor ama waxay kula tahay qisadan ama waxa laga baran karo noo soo qoran hana iloobinina channelka inaad share gareysaan oo aad like saartaan sidoo kale haddaad nagu cusub tahay qisadan aad aragtay channelkeena qisooyinka nadaara laba iyaduna waxaa samaysaan subscribe ka samaysta Facebook ana follow gareeya inta aan mar kale asxaabay qiso middan lamid aanu ku kulmayno iyo qisooyinkeena kale ee soo socda waxaan idinkaga tegayaa
sidaas iyo nabadgelyo.